adiga kula tahay guryo habaarani hadalkaad kala hori inuu hawsha iga hodiyo hadday adiga kula tahay guryo habaarani hadalkaad kala hori inuu hawsha iga hodiyo sida aynu ognahay aqoonyahanku waa furaha guud iyo kan gaar ahaaneed oo ay leeyihiin qowmiyadaha dunida qaybahooda kala duwan si kale haddii aan u dhigo aqoonyahanku waa furaha guud kan gaar ahaaneed iyo kan mustaqbalka dowladaha caalamka la-aantiisana uusan socon karin mishiinka dowladeed oo ay leeyihiin qowmiyadaha dunida waana ka iftiinka u ah qarni kasta islamarkaana isku xira wixii tegey waxa jooga iyo waxa soo socda mustaqbalka aqoonyahanada dunidu waxay leeyihiin qaybo kala duwan dalalka caalamku waxa ay soo kireystaan kuwa ka baxsan kuwa gudaha si loo jiheeyo aqoonyahanka gudaha waana hab soo jiray in muddo ah oo dowladaha qaarkood ay ka gaareen guulo la taaban karo balse waxaa su-aali ka taagan tahay aqoonyahanka soomaaliyeed intooda badan dalku way ka guureen qaar baa weli jooga qaarna waa jooga maqana halka qaarkood ay qayb ka yihiin burburkii dalka soomaaliya ka dhacay laakiin su-aalahan taagan ee aan loo haynin jawaabaha ku filan waxaa ka mid ah ma jiraa isbedello ku dhaca aqoonyahanka soomaaliyeed haddii uu jiro isbedel maxaa sababay yaa ku khasbay fikirka aqoonyahanka soomaaliyeed ma ka sarreeyaa inuu wax ka bedelo qorshayaasha gumaystayaashii hore kuwii dhexe iyo kuwa xilligan aynu joogno haddaba si aynu wax uga ogaano ayaa waxaan go'aansaday in aan idinla wadaago shir socday in ka badan 10 maalmood oo ay kasoo qaybgaleen in ka badan 40 xubnood oo aqoonyahano soomaaliyeed ah islamarkaana ka kala socday dalalka caalamka qaybahooda kala duwan ee qurbojoogta soomaaliyeed ay ku nool yihiin iyo kuwa gudaha ayaa lagu qabtay caasimada dalka Djibouti bishii 2010 Professor Ahmed Ismail Samatar oo ka mid ah xubnihii shirkaasi oo aan wareysi dheer kula yeeshay goobta shirka uu ka socday ee Hotel Sheraton 17 bishii 2010 waxaana ka weydiiyay ujeedada shirka waxa ka soo baxay cidda fulinaysa go'aamada ka soo baxa shirka iyo waxa uu kaga duwan yahay shirarkii kala duwanaa ee loo qabtay dadka Soomaaliyeed wixii ka horeeyay 2010 ayaa waxa uu hadalkiisa ku bilaabay sida tan arrin qura waanad mahadsan tahay arrin qura ayaa halbowlo oo ah shirkan 10 ku dhow soconay waxa weeye in la qafala qoodo oo la furfuro oo la baaro waraaqa cilmiyeysan la keeno oo ku saabsan wadanka Soomaalida arintiisu maanta halka ay marayso dhibaatooyinka waxa keenay sida looga bixi karo yaa ka saari kara sideeba looga saari kara su'aalaha aynkaas marka waxay nala noqotay markaad soo ururiso arintii inay iskugu soo ururayso in dadka Soomaalida ah hooga haysta oo ka imanayo iyada oo ilaa maanta la laayahay hoggaan Soomaaliyeed oo la yimaada daacadnimo akhlaaq iyo edeb iyo karti waliba karti special waayo kadartu way adag tahay taasi waa kuwa hoggaankii waxa maanta wadanka jooga ee hoggaan haya amba wixii na soo maray 20 sanadood ugu dambeeyay inay isku wada mid yihiin ee karti daradooduna ay tahay maanta halka maanta na dhigtay inaanu noqono wadankii adduunyada ugu xumaa dhaqaale markay noqoto siyaasad markay noqoto corruption iyo musuqmaasuq markay noqoto ammaan darro markay noqoto wadankii ugu xumaa inaanu marka qofka maanta madax ka Soomaaliya amba ka soo ahaa 20 sanadood ugu dambeeyay de waa khaso waa inaad xishootaa weeyi marka horta taasi waa koobta kale ee labaad waxa weeyi hoggaankii waxa ku xigta dawladii
xafiisyadii ballaadhneed dowladda oo hawshii loo dhiibay ka soo bixi karay kuwaasina ma jiraan oo wada burbureen oo wada baabeen wasiir baa hebel lagu leeyahay wasaaradina ma jirto macno leh marka dowladdii xafiisyadeedii iyo hoggaankii labadaa ayaa soomaali ka lumay labadaa haddii la soo celin waayana taariikh cusub oo la furi karayaa ma jirto isnaca ummadda ee maanta inagu dhex jiraana wuu sii badan marka jacaylka soo celintiisa dad is-ogol oo meel ku wada socda dowlad la dhiso oo maxaanku idhaahayey karti leh labaduba waxay ku xidhan yihiin hoggaan miisaan leh aqoon leh akhlaaq leh mustaqbalka soo socda arki kara oo markaa dadka gaadhsiin kara ayay ku xidhanta professor marka intaas oo arrimahaas oo dhan aad eegtay bal maxaa idiin soo baxa waaye markii aad idinku aad shirteen oo aad waxaa noo soo baxay weli shirkii wuu socdaa laakiin waxaa noo soo baxaya inaanu horta isla fahamnay cudurkii inteedii badnayd iyo halka uu ka soo baxaya waxaa kaloonu isla fahamnay oo aan iminka dabayaaqadeedii ku jirnaa si aanu u taagno oonu u qotomino dee dadkii soomaaliyeed ee caafimaadka qabay ee waddanka gudihiisa deganaa kismaayo ilaa boosaaso ilaa saylac boole burde beled weyne laascaanood boorama ceerigaabo hargeysa burco berbera ya jowhar baraabe baydhaba ya deganaa ya inta ku xidhaniba ee caafimaadka qabay ee waddankooga danta ka lahaa iyo kuwii dibadda joogay ee iyaga la mid ahaa xagga caafimaadka oo weliba laga yaabo inay aqoon iyo nasiib ka wanaagsan kuwa waddanka jooga ay leeyihiin inay isku biiraan oo marka halka ay ka soo baxdo dhaqdhaqaaq aan hore loo arag 20kii sannadood ee ugu dambeeyey ugu yaraan oo dhaqdhaqaaqaasi uu yahay mid ku fadhiya inay waddanka ka saarto xukun la'aanta iyo hoggaan la'aanta haysata dowlad la'aanta haysata iyo nacaybka dhex maray iyo cadaawadda dadka dhex martay saddexdaa inay ummadda ka saarto dhaqdhaqaaq caynkaasa inuu ka soo baxo oo hamadeedii leh oo adkaysigeedii leh oo kartideedii leh ya inay ka soo baxdo adinku hadda dawladda hadda jirta ma mid aad ku taageeraysaan oo aad toosinaysaan misena waa mid ka gooni ah waxa adinku awadaan dawladda ku meel gaarkee maanta taagda dee dad badan oo shakhsi ahaan sharaf leh way jiraan oo anu qaar baaban aqaan ah laakiin markaad isku qaadaysaado dawlad iyo hoggaan wax la toosin kara ma kartidaa ku yar waxaa ku yar maxaan ku idhaahay edabtii dawladnimo ee xoolaha dadku ay leeyihiin amba sadaqada yare la soo qaado sida loo ilaalinayo ayaa ku yar waxaa ku yar aragtida dheer iyo adduunyada lagu nool yahay iyo adduunyada soo socota qaybta Soomaalidu ay ka galayso garashadeeda ku yar marka wax dib imka loo abuuri karayo la toostoosin karayo ma aha aniga sida ila tahay waxa la soo gaaray waqtigii alternative wax taa ka duwan dad ka duwan vision arag ka duwan karti ka duwan maskax ka duwan akhlaaq ka duwan sidii ummadda Soomaalidu ay uga tashan lahayd salaadeediiba maanta la jooga okay arrinkaas hadda aad waa tilmaantay in wax ka duwan la keeno marka soo laga yaabo inuu waqti badan idinku qaato ha waa de kullayba dhisma wadan dib loo soo dhisaya saacad kubada iyo ma aha maxaan ku raahayay maalin iyo laba iyo toddobaad iyo bil iyo sanad ma aha wadan sidaa u baaba'ay oo ay taariikhdiisii dhulka gashay soo noqoshadiisu waa sidii wax xabaal laga soo noqonayo kale noqonaysa muddo dheer bay qaadanaysaa laakiin de muddadii dheer tallaabo yar bay ku bilaabantay haddaad maanta doonayso inaad halkan ka dhaqaaqdo Djibouti soo ma joogto ood socod ku tagto Cali Sabiix amba Hargeysa aad ku tagto amba Muqdisho aad ku tagto dee waa inaad tallaabo qaata tallaabada ugu horreysa diyaarad haddaad xitaa raacdo waa inaad diyaaradii tallaabada ugu horreysa qaata oo injiinka inta la bilaabo sidaa u dhaqaaqa intaanay duulinba markay duushana intay diyaaradii kacdo markiiba ma fadhiisanaysa waa inay duushaa marka waanu fahamsanahay waqtiga dheer wuxuu u baahan yahay waxaan se also fahamsanahay waqtiga gaaban salaadan maanta la joogay gaabani tallaabooyinkii la qaadayay sida meel loo dhigayo ee loo qaadayo kuwaas deetana waqtiga dheer ku gaarsiinay barsara
adigu waxaad ka mid tahay aqoon-yahanadii Soomaaliyeed muddadii 20 sano ay maamulada oo iska soo horjeeda ee dhisnaa waxay ahaayeen dadkii shuruucda u sameeyay ee taageeray marka miyaan la dhihin aqoon-yahanada dadkooda ayaa u baahan diyooshisi anigu ma qabadee aqoon-yahanku inay dagaal ka dhaxeeyaan xin iyo xaasidnimo iyo tartan inuu ka dhaxeeyo waa aqliga gali kartaa bin aadamka tabiicadiisa ay ka mid tahay waliba tartanku waa wax haddii si wanaagsan loo habeeyo tartanku caafimaad buu keeno wada waa lagu kala bartaa dadka laakiin anigu waxaan qabaa wixii heshiisiis iyo dawladis iyo arrimaha caynkaas ayna soo maray 20 sanadood ee ugu dambeeyay intooda badan inay ahaayeen wax naqshadooda iyo miisaanka ku baxaya iyo jihada loo jeeshanayo waxaasoo dhan aad moodo inay ahaayeen wax meel kale laga keeno maanta waddanka Soomaalidu gacan wadmad Soomaaliyeed kuma jiro oo meel kale magaalada Nairobi haddaad tagto xafiisyo dhan baa ka furan oo adduunyada dhigatay oo Soomaaliya laga maamulo dhibaatooyinkeeda amba lagaga hadlo wax Soomaaliya oo maamula ma jiraan wax hoosta ka shaqeeya ma ogi oo meelaha hoose xafiisyada fadhiya marka way ku yar tahay inta Soomaalidu command iyadu gacanta ku hayso ee ay dhaqaajinayso taasana keentay inteeda badan waxaan raqda ah ee kulba soo noqnoqonaya marka isku tiirsanaad iyo iska wax u qabso inay Soomaali ka timaado waa laga maarmaan aqoon-yahankuna qaybta ay ka galayaan waxa weeye shaqadooda ra'yi horta waa inay keenaan analysis ku saabsan dhibaatada taaganu halka ay ka timid oo ka duwan sheekada maqaaxida lagu hayo ama meesha jaadka lagu cunayo lagu hayo ee qof walba uu iska hadlayo anigana sidaas ay la tahay yaa aan cilmiyeysnay horta taa waa in la dhaafo laba diagnosis ka hadda la keeno sida looga baxayo taladeedina waa in qofku keeno ya taladii ka duwaneyd ee arrinta lagu dhaafi lahaa waatan taa markaad keento waxa ku xiga waxa weeye cidda qaadaysa talada ee ku dhaqmaysa ee hirgelinaysa iyo quwadda lagu gelinayo kartida lagu gelinayo qofka aqoon-yahankii saddexdaaba inuu ka qayb galo waa lagama maarmaan bay aniga ila tahay waliba labada ugu horeeya waa shaqadooda run in la raadiyo oo runta ku tusayso halkay dhibaatadaas ka timid runteedii la raadiyo oo ay tahay run naxariis iyo caafimaad iyo ixtiraam ku jira aan ahayn run dad lagu baabinayo ama lagu caayayo aan ahayn marka labaadna runtaasi in laga soo saaro miro dhaliya waqti iyo mustaqbal dadka uga naxariis badan kan oo ay ku gaadhaan inay runtaas wax kaga qabsadaan oo ay ku dhaafaan runtaas oo run kale oo ka taa ka weyn ay u tahay waa wax qabash waxa weeye ra'yiga dawada ahaa iyo dadkii qabanayay iyo hawsha sidii lagu qabanayay waqtigeegii iyo dadaalkeega taasna horta Allah hadan dadkii aqoon-yahanka nooc walba noocaane iyo ummadda Soomaaliyeed professor wuxuu kaga duwan yahay shirarkii hore ee Soomaalida loo qaban jiray oo dhowr amuurad buu kaga duwan yahay anu ma aragtay shirarkii Soomaalida hore loo qaban jiray lagu heshiisiyay waxa la lahaa oo la yiri horta soo darso oo waraaqa cilmiyaysan public policy soo keena kuwaasi han noqdaan kuwii laga soo saarayay murtida ma inta la iskugu yeero shaah maqaaxi balaaran la iskugu yeero ama meel baa la yiraahdo qof ay iska yimaadaan halla wada hadlo laakiin wax maxaan ku macnaysan oo discipline edeb leh oo la soo shaqeeyo la soo qoray arinta taa weeye cilmigeegina waa kan anu hore uma arag waa kow talabaad ay kaga duwan tahay waxa weeye inaanu abaarnay arrintu way fara badan tahay yaa oo wabiyo badan baa jira dooxyo badan baa jira laakiin biyuhu meesha iskugu ururayaana inaanu taabanay oon ahayn 22 problem aan ahayn meel qolata tasaddexaad ee aanu isleenahay iyadana waad kaga duwantiin wixii hore tagay waxay nala tahay inaanu soo bandhigi karno oo nimanka gacanta ku hayno sidii looga baxay ya oo ka duwan jawaabihii ay keeneen shirarkii naga horreeyay ta afraad ee ugu dambeysay waxa weeye dadkii qabanaya hawshaas
ee dhaqaaqeygii maxaan ku dhahay bilaabayay iyadana inaanu magacaabi karno amba aanu soo saari karno ayaa ku kalsoonnahay shaqadaasi weli waa baylaho weli way maqan tahay laakiin kalsooni baanu haysanaa inaanu soo saari karno dad Soomaaliyeed oo caynkaas finally tay kaga duwan tahay waxa weeye inay noqoto wax annagu aanu kasbanno ee cid kale aanay noo soo dhiibin annagu aanu kasbanno cid kale aanay noo soo dhiibin ama Mareykan aanu noo soo dhiibin amba dawladda Carabeed aanay noo soo dhiibin ama dawladda maxaan ku dhahay dariskii aanay noo soo dhiibin dawladdan Djibouti ha noqotay aan noo soo dhiibin ee wax annaka naga yimid ya oo laftayada iyo maskaxdayada iyo qalbigayga ka soo baxay barsare shirkan yaa gacan idinku siiyey oo idin taageeraya waxyaabihii ka soo baxay iyo haddaba dawladda Djibouti way ku mahadsan tahay iyo xafiisyadeedu inay waddanka noo furaan ay meel naseexiyaan ay nasiiyaan meel aanu ku shirno ay maxaan ku dhahay nala qabtaan maaragtay fadhigayaga oo adeedkii marxabayskiiska la isku lahaa dadka islaamka isku leeyihiin dadka Soomaalida isku leeyihiin taa way nasiisay horena waa tii u siisay Soomaalida oo intayadan in ka badan ayaa horena loo siiyay ugu yaraan 2 goor Arta iyo Djibouti marka dawladda Djibouti sidaa ayay ugu mahadsan tahay madaxweynaheeguna wuxuu noqday nin karti weyn leh Soomaalinimaduna dheecaankiisa iyo dhiiggiisa ay ku jirto oo madaalo noqday adduunyada koodhan waa ka qoosatay Soomaali president Ismaaciil Cumar Geelle ayaa u haray wax wehela dadkii Soomaalida marka taana waa noogu soo gabanay laakiin waxaan waa wax annagu aanu codsanay annaka is ururinay annaka maxaan ku nahay dadkan soo magacawnay inay yimaadaan sida loo hadlayo annaka samaysanay asluubta loo hadlayo waanu samaysanay arrimaha laga hadlayo annaka samaysanay doodina weli noo socota waxaan filaynaa inaan ka soo saarno wax aqliga gali kara oo dadka Soomaalida ay dhahaan ha malaha waatan dabadeetana la galo usluubteedii sida loo dhalinayo yaa gacan idinku siinaya marka waxyaabihii ka soo baxa meeshan in ay fulaan shayga ugu weyn waxa weeye dadka Soomaalida gacan ku siiyaan Soomaali dibad joogta oo maanta 100,000 tiradoodu ay tahay dana milyan ku dhaweey iyo Soomaalida waddanka gudihiisa joogta halkaas xuduudda ugu weyn halka weey gacanta lagu siinayna waxa ugu horeeya dadka wada qalbigooda iyo maskaxdooda hananto dad qalbiga iyo maskaxdooda hananto way kula socdaan marka shilinka jeebka ugu jira ya iyo maxaan ku rahay rodolka bariiska meesha u yaala waad la cuni oo way ku keeni laakiin haddii aanad maskaxdooda iyo qalbigooda hanan ma soconayso marka guusha ugu horeysa waxay u taalaa dadka Soomaaliyeed gacanta laga filayana waa iyaga gudaha iyo waddankaba ra'yigan in laga dhaadhiciyo loo soo bandhigo iyagu inay qaataan ay garab galaan hawsheedii ay ka qayb galaan baa ugu horeysa taa haddii la helo adduunyada kale dadkeenu dariska nahay iyo dadka sii fog adduunyada ballaaran oo xoolo iyo aqoon iyo wax walba ay yaalaan dee qalbigooda iyo maskaxdoodana waa la soo jiidan karaa waxay odhanayaan war dadkii Soomaaliyeed laga quustay waa koonu xabaashii siyaasadda way ka soo baxeen waxay garteen inay dib u soo noolaadaan ra'yiga caynkaas ay la yimaadeen dadka caynkaas oo kartida leh bay la yimaadeen soo damaad garan akhlaaqda caynkaas ay la yimaadeen iyo edebta caynkaas iyo waana guurayaan oo meel cusub ayay u socdaan iyo maskax cusub iyo qalbi cusub gacan hala siiyo marka dadka dee ummadda Soomaalida marka u hadlaya ka soo baxaya maxaan ku dhaqdhaqaaqaas ayay waajibkooga tahay inay tusaaleeyaan dadka Soomaalida in maskaxdooda iyo qalbigooda dib u soo noqday marka in iyagiina la qanciyo inay ka qayb galaan dhismihii ummadda Soomaalida taasna uma qabo anigu inay dib weyn tahay barsare dawlad kasta ee ku meel gaar ah ee 10 sano ugu dambeysay dalka Soomaaliya loo dhisay xilliga ugu dambeeyay ee soo gabaabsi uu yahay dunida inteeda kale waxa ay sameeyaan seminaar fara badan shirar ay qabtaan oo dib macnaha loogu bedelayo tan hadda jirta markii ay booska ay ka baxdo mid kale loogu bedelayo haddaba muxuu kaga duwan yahay kuwii hore loo qaban jiray kaas bedelaadu waa caadi waxbaad ku khamaari dawladdan hebel iyo heblaayo iyo ay madaxda ka yihiin sida u dhisan ha lagu khamaaro
waa lagu khamaar khamaarkii wixii ka soo noqday khasaaro noqday hadduu khasaaro noqday oo karti darro iyo corruption iyo dad iyagu kala wax aan jirin oo maaragtay qarafada yar ee dadka adduunyada loo keeno isku qaqabsanaya raqdii iyo xanuunkii ummadda soomaaliduna ag yaalloon ogeynba dee waa waajib bay ku tahay dadka soomaalida iyo adduunyaduba inay yidhaahaan tanna waynu ku daynay bal hadda meel kalena aan ka raadino haddii aan sidaa la yeelin dee optionka qura yaalla waxa weeye taasi bal ha iska sii socoto khasaaruhu ha iska sii socdo dee waa laga yaaba dadka qaarkii inay caynkaa yidhaahaan laakiin dad soomaaliya waddanka gudihiisa iyo dibadda jooga goor walba oo qalbigooga iyo maskaxdoodu nooshahay ayaa odhanaya taasina nama kharajiso markaa dee kolley adduunyo ma laha wax adduunyada la yidhaahaa ma laha guarantee in jannadii adduunyada iyo maxaanku aakhirada iyo wax walba halkan lagu helayo ma laha adduunyadu waa tacab goor walba waa tacab marka waxa weeye laakiin tacabkiibaa mid natiijo lagu gaadhayo adduunyadana wax lagu dhisayo aakhirana abaal lagu yeelanayo iyo mid khasaarana adduunyo keenaya khasaare aakhirana keenaya labaduna way isku xidhan yihiin anigu waxaan qabaa qofkii adduunyada ka keena guul ka keena guul xalaala qofkii ka keena anigu waxaan qabaa aakhirana inuu helayo nasiibkaygii oo wanaagsan waana ku jirtaa diinteenna oo qur-aanka way ku jirtaa iyo xadiiska marka isbeddelku iyo adduunyadan gelgelinaysa bal hadda tanaan wax ka dayno wax kale ma aha waxa weeye in la raadiyo marka la arko inaanay wixii soconayn in mashiinkii baabuurka dib loo dhiso taayiradii la bedelo dirawalkii la bedelo ra'yigii lagu socday iyo baabuurku maabkuu qaadanayay la bedelo taasi dee waa waxaan laga fursan karin haddii la arko inaanay wixii soconayn professor wax boogaha meesha way fara badan yihiin baad laakiin halka isugu shubtaan ayaanu helnay baad bal meeshaas shacabka Soomaaliyeed si looga sii dhaadhiciyo waxa idinku aad hesheen bal annagu waxayna tutaaladeeda noqotay imikana taagan 10 sanadood horteedna taagnaa 20 sanadood horteedna taagnaa oo aad eegto inay common u tahay waqtigaas guul darro ka timid hoggaan la'aan amba hoggaan karti daran amba oo waliba corrupt ah iyo xafiisyad dawladeed oo aan jirin adduunyada lama hayo waddan iyo ummad meel u dhaqaaqda haddaanay lahayn hoggaan karti leh oo akhlaaq leh oo daacada haddaanay lahayn adduunyada laguma arag waddan meel gaadha oo ka qayb gala taariikhda caalamka oo aan lahayn dawlad karti leh oo dimuqraadi ah oo maxaan ku dhahayay hawsheeda ka soo baxa labada haddii la waayana sun bay dadka ku dhex beertaa isnac bay keentaa kala jab bay keentaa kala orod bay keentaa halkaa weeye marka arrintu dadkan xagee ka kala yimaadeen dadkani waxay ka kala yimaadeen intellectualska ee imika shirkani u gabagaboobayo tiradoodu ilaa 45 wey meel walba way ka yimaadeen Soomaali joogto Malaysia ka yimaadeen hadda dibadda ka hadlayso England baa laga yimid Sweden baa laga yimid waxa laga yimid Finland yaa laga yimid Norway baa laga yimid Mareykan baa laga yimid Canada laga yimid maxaan ku raahayay Holland baa laga yimid meel badan baa laga yimid geeskana laga yimid iyo waddanka gudihiisa baydhaba laga yimid boosaasaa laga yimid hargeysaa laga yimid muqdishaa laga yimid waddanka gudihiisa waan dhannahay okay ugu dambayn markaad eegto qaabka hadda ay wax u socdaan isleedihiin waad ka gungaari kartaan annagu waxaanu qabnaa kalsooni inaan keeni karno hadal aan hore u iman oo xagga analysiska ah talo waxqabashadeeda oo aan hore u iman hadday hore u timidna la iska tuuray laakiin qiimo leh amba la qaban kari waayey iyo dadkii iyo ra'yigii waxaa dhaqaajin lahaa ee ummadda dhex gelin lahaa ayaa nala tahay inaanu keennay amba aan soo wadno shayga ugu weynina markaad gunta gasho waxa weeye ay ka abuurmaysaa ummaddii Soomaaliyeed jacayl cusub inay iyadu isku yeelato dhulkayga ay u yeelato gobolmada gobolka kale u yeelo caashaq cusub oo Soomaali ay isku yeelato oo kii dawladnimada keenay lamida amba ka weyn ayaa annaka baadidoonka iyagu yahay inaanu keeno waanad mahadsantay maxaad u soo jeedinaysaa shacabka Soomaaliyeed ee fikirkaaga akhrisanaya ama dhageysanaya
shirkan xagiis ku saabsan waxa weeye dee shirkana dhageysta wixii ka soo baxa idinkuna maxaan ku rahay maskaxdiina iyo qalbigiina iyo dhididkiina waa inaad ku soo yabooqdaan waayo dee waxani waa wax ummad oo dham inay u soo wada jeesataa 2 qof iyo 20 qof iyo 100 qof waxba kama qaban karaan haddii ummadda kale ay ka sii jeesato qalbigiina maskaxdiina iyo shilinka yar idinkoo faqiiraad haysaan iyo maxaan ku rahay dadaalkiina iyo dhididkiina lagama maarmayo waxaan u noqonayaa wixii dhaqaajinaya arrinta aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo igu warramay hotel Sheraton caasimadda dalka Djibouti 17 bishii 12 2010 hadday adiga kula tahay guryo habaarani hadalkaad kala hori inuu hawsha iga hodi hadday adiga kula tahay guryo habaarani hadalkaad kala hori inuu hawsha iga hodi warwad mala habowday kan ku ogaade wax la huuriyaa dhimay warwad mala habowday kan ku ogaade wax la huuriyaa dhimay